Dubai sidaan horay uga waranay waa magaalo maalqabeen ah oo xudun u noqotay 40kii sano ee ugu dambeeyay dhaqaalaha iyo dalxiiska labadaba. Hase yeeshee muuqeenan waxaynu uga hadlaynaa nolosha qaaliga ah ee ay ku nool yihiin qoyska maamula magaaladan iyo sida ay ku hanteen talada xaruntan taajirka ah. Qoyskan oo ka kooban madaxa magaalada Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum, saddexdii saxaas iyo 23kii carruurta ah ee uu dhalay. Sida ay caanka adduunka uga yihiin ayay sidoo kale ugu nool yihiin mustawa qaali ah. aan dib ugu noqono xilligii qoyskani la wareegeen talada Dubai. waa sanadkii 1833 oo 80 qof oo ka koobnaa qoyska reer Maktoum talada xoog kaga la wareegeen. qoyskii waagaas ka talin jiray magaalada ee reer Binyas. qoyskaas reer Binyas waxa la xasuustaa inay ahaayeen kuwa ugu xoogga badan saxaraha. hase yeeshee barqo ayaa talada laga faramuroojiyay. wixii intaasi ka dambeeyay reer Maktoum ayaa haya talada magaaladan, kuwa oo iyagu isu aqoonsaday qoys boqortooyo. sanadahan casrigaana waxay bedeleen wajigii qadiimiga ahaa ee Dubai oo ay ka dhigeen magaalo ixtiraam weyn ku heshay horumarka uu ku hogaamiyay madaxa qoyskan Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum, ka oo talada la wareegay 2006 goortaas oo uu geeriyooday walaalkiisii weynaa Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Sheekh Maxamed bin Rashid ma aha madaxa Dubai oo kaliya ee wuxuu sidoo kale hayaa xilka madaxweyne ku-xigeenka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyo xitaa wasiirka difaaca dalkaas. tan iyo markii uu talada la wareegay Sheekh Maktoum 2006 wuxuu hormuud u noqday horumarka baaxadda leh ee magaaladan Dubai ku talaabsatay. qoyskiisa ayuu sidoo kale ka dhigay mid hodan ah, ka oo hadda raasumaalkiisa lagu sheego 18 bilyan oo dollar. wuxuu maalgeliyay ninkan ee adeegyada waxbarashada Dubai, dhismayaasha casriga ah ee magaalada, kaalmada iyo xitaa dhacdooyin caalami ah oo uu martigeliyay. waxaynu kale oo oran karnaa horumarka baaxadda leh ee qoyskani ka sameeyay Dubai wuxuu sidoo kale reerkan ka dhigay mid adduunka caanka ah. waxay leeyihiin gaadiid ama guryo kuwa ugu qaalisan. waxay casumaan dadka adduunka ugu caansan oo magaaladan joogto u yimaada. xaflado muusig oo dad caan ah ka qayb galaan ayaa halkan ka dhaca. sidoo kale waxay qoyskani ka soo muuqdaan kulamada bulsho ee caadiga ah. si fudud waxaynu u oran karnaa waa qoys caan ah iyo kan adduunka ugu hantida badan. sidoo kale waa qoyska kaliya ee si guud loo wada og yahay xogta habnololeedkooda khaaska ah. haddaan barbar dhigno qoyska boqortooyada Ingiriiska, guud ahaan xubnaha qoyskaas looma ogola isticmaalka baraha bulshada, balse qoyska reer Maktoum waxa ay leeyihiin baro bulsho oo aysan kaliya u adeegsan ku soo bandhigida nolosha heerka sare ah ee sidoo kale ay ku shaaciyaan dhacdooyinka waaweyn. sida ay xagaagii 2018 samaysay gabadha Sheekh Maktoum oo dhalashada cunugeeda ku shaacisay Instagram-keeda. bal qiyaas hadday sidaasi samayn lahaayeen Prince Harry iyo xaaskiisa Meghan, ganaax ayay kala kulmi lahaayeen qoyska boqortooyada. madaxa Dubai lafahantiisa ayaa leh Instagram ay ku xiran yihiin malaayiin followers ah, halka oo uu dadka kula wadaago xogaha khaaska ah ee boqortooyada iyo sawirrada qoyska. sidoo kalena uu ku shaaciyo macluumaadyada uu rabo in dadka Dubai ogaadaan. docda kale mid ka mid ah xaasaskiisa ayaa caan ka ah baraha bulshada. taasi waa Haya bin Saul Al Hussein, xaaskiisan oo ah suxufiyad baratay culumta saxaafadda. inta badan ma laha dhaqamada boqortooyada. iyadu waa wakiil qaramada midoobay u qaabilsan qaadista fariimaha nabadda iyo madaxa kaalmada caalamiga ah ee Dubai. kana waa Sheekh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, dhaxal sugaha 38 jirka ah ee qoyska boqortooyada Dubai. waa macquul inaadan mooganayn maqalka xogta daayarkan oo maalqabeennimadiisa ku soo jiitay indhaha caalamka. waxaa hantida uu haysto lagu qiyaasaa 400 milyan oo dollar. wuxuuna maal gashaday mashaariic qaali ah gudaha Dubai, halka uu mulkiyadooda leeyahay gawaari qaali ah, geel, fardo, doomo raaxo oo qiimo sare jooga iyo xitaa guryo uu qaybtood ku leeyahay dalka Canada, kuwa oo iibkooda ugu kacay lacag ku dhow isugeyn 500 milyan oo dollar sida la wariyay. bilowgii 2018 Amirat Sheikh Latifa oo ahayd gabadha Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum ayaa barta YouTube-ka ku shaacisay inay isaga baxsatay qoyskeeda. waxaana sababta ay u baxsatay ku sheegtay inaan qoyskooda u ogolayn helidda baasaboorka dalkeeda, inay gaari ku wadato gudaha dalka, iyo in loo diiday inay ka baxdo dalka ama u kala safarto gudihiisa. qoftan ayaa doonin raaxo bilowgii kaga baxsatay dalkeeda, dabadeedna gaartay waddanka Mareykanka, balse warar ayaa tabiyay in dib loogu celiyay dalkeeda. hase yeeshee ma jirto cid weli midaasi hubta. qayb ahaan dadku waxay qoyskan ku eedeeyaan xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhan ah, balse waxaan shaki ku jirin in reerkani bedelay wajigii Dubai, sidoo kalena yahay mid ka mid ah qoysaska dunideenna ugu maalqabeensan.